فيه وحا كميدا إني إن وضمان شيء هيسو ورب المحول يهي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عائشة وحيتر يا رسول الله أن نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. خبثك هضوبته ولا اسم لها لاغية. أخواني في الله maxaa kale oo lagu xusaa lagu mutaa inay ummadi fashilanto waxa kale oo lagu mutaa in khilaaf uu dhaco oo inaga dhexdeenu aynu isku khilaafno fikir ama qabyaalad ama siyaasad oo aynu inagii barkeen barka kale cadow u noqdo iyaguna waxay astaan u tahay fashalka. haddii uu cadow dibadda yimaad qaybteen buu qaybta kale ku garaacay. waa dhaweyd unbay ahayd markii la isku keen adeegsanayay ee kolla xaggan laga soo marayay lalahaa wahaabiyaha laga qabto, kolla xaggan laga soo marayay lalahaa qolada kale ha la raadsado, ee innaga uun dhexdeenna laga dhex dooranayay shaambal iyo maharajaa iyo waxyaabo magacyadii aan aad uma xasuusto. soo innaga waa dhaweyd ma ahayn, لأنه وحين كوكرة تكسنين محي أفكارت، وحين كوكرة تكسنين عقائد النجي بأمريكا لإسكوكين أديسري. لذلك رب وحو إن الله يهي أمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا ورهدوا ذينا هأسد بتشيدننا إذن كتحذين هكرتين وهذا نعظم كورا اللوحو إن الله هاي فتفشلوا. فأذا اللغة العربية محيثة إليس وفاء السببية. هدي التنازع ذان بسبب هذا التنازع وفشل ما يسان ذلك. هدي الله فشل ما محا كضنبي ربي وحو ليهي وتذهب ريحكم أودينين وأي تغيسا. عدوي إذن كهيبة ليساني إلى هيبدي وإذن هي قلوب تضرقي أي قلبي بورك الصاري. إخواني في الله وحين ولو هي ما أنت ضدك مسلمين تي إليهين الدنيا ضدك اللوغو هقردان البدنية اللوغو قباتين تبدنية وحاويان ما أنت الدقال والبؤ قال ألوسي عد اللطو صار يوائيا ما بدي لقد بدنية هيبا مايا ما أول لقى أول بدنية هيو كراوا مايا محا إنه قد عي لبع عذر. عذرك كوبادي وحاوي حب الدنيا إني الدنيا دي أي نتشعلاني الوهن كان بعضنا ومحي كراهية الموت إن مبدأ حق الله بنته أينو اسكن عن يقولوا كراهية سنة. لذلك وربك وحو إن الله يهي سأين أرمها سأربع مؤمنين هدودنا تنازع سميننا هضات سميسان وفشل ميسان وضعف إيا هون إيا خور بائدين كبعي أودينين وأي تريسان. وحن ربعين دول إستاغو محال لغا قبحي كرا فشلك وحن لغا يابا هذا هدي أينو إنه إسوريسانو نرشا ما إنو كفشلن هاي مسكو مفشلنين inaynu jawaabta isu khilaafno laakiin meel yar baan idinka tusi. isbuucyadan waxaa inoo da'ay roob aad iyo aad u badan, ilaahay baa mahad ku leh. haddii hadda 3 bilood oo soo socota roob uu inoo di'i waayo alla ma qadare xoolaheennuna biyo la'aan bay u baabi'i. waxa weeyaan baadiyihiina macruul baa looga soo carari.
biyahan hadda inoo da'ay ee guryihii iyo laamiyadii qaadaya cid ka faa'iidaysanaysaa ma jirtaa? waa maya. cid ka fikirayso oo la warheedhe biyo la'aan baa sanad walba loo baaba'a oo xoolihii cuntada la siinayaa tii dadkaba ka qaalisan ee aynu ka fikirno aynu ka shaqayno oo badan lama helayo. haddii la helana waa hadal soo sidaa maaha. arrintaasi waa fashal oo noloshii aynu ku fashilannay. haddii la fiiriyo maanta caafimaadka aynu haysanno, shalay baanu meel dhaktar a joognay oo dadkii oo isku wada silicsan oo isku wada rafaadsan baan waxba loo qabanayn baa haddana xoolo badan laga qaadanaya. xagga caafimaadkana waynu ku fashilannaa. haddii ay waxbarasho noqoto, keenna jaamacadda soo dhameeyey haddii qalin qori samee la yidhaahdo ma samayn karo. aqoontiina waynu ku fashilannaa. haddii siyaasad la yidhaahdo, ninkii ilay ahaa ee dhibka uu inoo geystay aynu garanayno, maanta Addis Ababa isagoo tay xidhan oo suur xidhan halkaa ka soo cantatabaya oo uu leeyahay xisbi baan samaysan, doorashaan soo geli. waan inagoo sidaa u fadhino hadduu rabo soo noqon, mayna sidaa ahayn. hadhowdiina waxaa ka dhicuun inta koofiyad cadda ah hala raadsado, maalinta dambana dhinaca kale unbuu u rogayo inta macamuusleyda ah hala cayrsado, madaxa unbuu isku keen garaacay. ninkan maxalkiisu, waana aquuluhaa saraaxatan, maxalkiisu maanta wuxuu ahaa inta jigjiga la keeno meel weyn oo baraxa in lagu qiimeeyo, halkaa iyada ah xukun lagu rido, ceebceebda laga qariyo. dadkii uu indhaha tiray baa jooga, dadkii uu adimada tiray baa jooga, hooyooyinkii uu gablamiyey baa jooga, raggii uu qixiyey intii uu waddanka haystayba aan cagta soo gelin carrigii ay u dhasheen baa jooga. intuu maanta inuu ku taamo inuu haddana dib inoo maamulo waa fashal heer siyaasadeed weeye. waxaa laga yaabaa inaad siro leedihiin wadaadku uu ku yara taraaraxay, laakiin hiya alxaqiiqa. هي الحقيقة. waxaa laga yaabaa inaynan adiga iyo isaga iyo iyagoo dhanba u qorshaysnayn maanta wali ninkaasaynu maxkamad cadaalada u soo saarannaa. waayo adiga qadiyadaada ma aha, anigana tayada ma aha. taasina waxaa la yidhaahdaa waa awalu asbaabi alfashal fi cilmi siyaasa. nin shaaciraa waa qolo uu ka dhashay oo wuxuu arkay aan dhinacnaba u socon, oo nin walba ninka kale uu ku halaynayo wixii jiray qabashadiisa. markaasuu ka gabiyo wuxuu yidhi: idaa maa araada allahu mulka qabiilatin ramaaha bitashtiiti alhawa waاtakhaaduli wa awalu cajzi alqowmi camaa yanuubuhum تدافعهم عنه وطول التواكل وأول خبث الماء خبث ترابه وأول لؤم القوم لؤم الحلائل. وإساده ujeedadii tahay ummad fashalkeed wuxuu ka bilowdaa arrinka jira isku tuurtuurkiibuu ka bilowdaa. ayib, arrimaha aan hadda sheegay iyo arrimo kale oo ka badan maxaa lagaga bixi karaa? shareecadu iyadana way inoo qeexday. waxaa lagaga bixi karaa 3 arrimood ee bal hadda u fiirso. alamru alawal almushaawara, inaynu tashanno oo wax la isweydiiyo. dadka cuqalada ah, ahlulxalli waalcaqdi, dadka ugaasyada ah, salaatiinta, garaadyada, cuqaasha, dadka ummadda horjooga u ihi inay hooye wax isweydiiyaan oy tashadaan. haadihi waa sifatu lmu'miniin, waana awalu sinaati najaax. oo ay yidhaahdaan maxaa inoo dan ah, maxaa inaga maqan, iyay wax inagaga maqan yihiin. magaaladan maalin walba biyo la'aanta iyo ay ka jirto waxa weeyaan waddadii aan halkan soo marnay, waddadan harta sheekha,
waxaan u malaynayaa caqliyaystay oo sidaa iyo si ka daran bay ahay. xoolaheedii aaway waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin su-aal sheekh u taalla ma aha, laakiin way u taallaa. sheekh cabdiraxmaan bay u taallaa, sheekh mukhtaar bay u taallaa, sheekh xasan bay u taallaa, sheekh maxamed bay u taallaa. war waddadan xoolihii loogu talagalay aaway yay ku maqan yihiin, yaa haysta in la isweydiiyo weeye. war wax adiga kuu yaalla maaha, mee aniga ii taalla. haadihi madiinatii xaqlaan ka ah. taa haddaad u fikirto ta gurigaadaa kuu badbaadi, laakiin haddaad tiraahdo taa waxba igama gelin, gurigaaga ardaagiisa maalinta dambe la isku qabsa, liannahu tiidshidaadaa ka yimid. rabbina wuxuu ina leeyahay wa amruhum shuuraa baynahum. waxaa kaluu rabbi ina leeyahay isaga oo nebiga la khitaabaya, washaawirhum fi lamri, nebi allow umuurta kala showr oo wax ka weydii saxaabada. amarkaa rasuulka la siinaya sala allahu calayhi wasalam, ogow waxaa lagu xoojinayay waxyun min allah, huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin. ilaahay baa nasrigiisa iyo waxyigiisa ku xoojinayay, laakiin innagaa inala farayaayo inala leeyahay war tashaawura. wamaa bihi qad khuutiba annabiyu tacmiimuhu fi madhabi saniyu, wamaa yacumu yashmalu rasuula waqiila laa walmadkuri tafsiila baa usuulu fiqigu uu qaacida ka dhigi jiray. wixii nebiga la faro waa wax ummadda la faray. almushaawaratu fi lamr, inaan wax isweydiino. alamru athaani alcaziima, waa inayna arrintu hadal ahaanin ay go-aan ficil la ahaato. go-aan ficil la ahaato. lidaalika ogaadana oo kelimadan alfashal af soomaali ahaanna waynu u isticmaalnaa, qur-aankana way ku soo aroortay. qur-aanka waxay ku soo aroortay 4 mowdic bay ku soo aroortay. mowdica koowaad waxaa weeye suuratu aali cimraan. rabbi wuxuu leeyahay walaqad sadaqakum allahu wacdah xataa idaa fashiltum id taxusuunahum biidnih حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبتبارك وتعالى halkaa wuxuu ka tilmaamayaa saxaabadii inay ku fashilmeen ghaswatu uxud. asbaabihii fashalkana waa u raaciyey. waxaa kaloo uu isla suuraddaa rabbi ku leeyahay id hamma taa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لبدا موضع كله قد يحوك شيء سورة الأنفال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وحكى له رب الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. waxaan u baahanahay daqiiqadahan kooban inaynu baldul istaagno aayaadka 4 waxa ay tilmaamayaan. ummadi maxay ku fashilantaa? waa su'aal. arrinka koobaaday ummadi ku fashilanto
وحويا عصيان أوامر الله عز وجل ومخالفة أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. روح هدي ربي عاصيه أما أي أمضي ربي قد عاصيه وحي عكت صارين وضغي فشلك إيا مرنكي لغوها اللابيي وأبوك بوحاد أفيرستا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد مركي اللي أبو سفيان وحلفذي قريشين iyo raggii ugu geesisanaa ee carbeed soo urursaday baa Madiina soo kordhagay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii go'aan buu siiyey. Wuxuu yidhi cadowgaa soo socda magaaladaynu kala dhex dagaalamaynaayo u bixi mayno. Xarbu shawaaric ma taqaanaa wax la yidhaahdo. waa dagaalka ay adeegsadaan dadka laga xoog badan yahay deegaankooda jooga. ninka maanta magaalada qabri bayax inagu soo weerara ciidan walba uu wato rag deegaankoodii joogaynu nahayo luuq walba yaqaan. masaajka dabadiisaad u geli oo kaalinta geeskeedaad u geli isagoo iska socduu ku soo gelayaa abaalkii baad ka waraabay. nabigeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam uma baxayna buuri niman dagaalkii Badar ka qabay oo xamaasadaysan oo dhalinyar abaa waxay yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow sallallahu calayhi wasallam cadowga oo halkan inoo fadhiya inagu ku sugi mayna Madiine ee ina bixi bay yidhaahdeen yaa rasuulallah. waa dhalinyar iyo caatifadood iyagu markaa wanaag raadis bay ka tahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam guriguu galay wuxuu soo xidhay dagaalka dharkii loo xidhanayay koofiyad biraadkii iyo duruucdii diyaar garow isagoo abu albaabka ka soo baxay. kadib bay iscanaanteen oo ay yidhaahdeen warulah ma laga yaabaa inaynu nebiga ku kallifnay wax uusan jeclayn. markaasay yidhaahdeen yaa rasuulallah صلى الله عليه وسلم قوان كاغي هورين ku socon. kadib baa wuxuu siiyay cashir wuxuu yiri nabi ilaahay uma banaana haduu dharkii dagaalka xidho inuu gurigiisa ku noqdo inuu baxaynaa buu. go'aankaasi ka soo laabad malaha. saxaabadii sidaasay ku baxeen. nabigu calayhi salaatu wasalaam jabal Uhud ninkii garanaya waa buur weyn oo buuraha ka socnayd nabiguna uu si gaar u jeclaa sallallahu calayhi wasallam. marka uu rabo inuu khalwoodana uu fuuli jiray oo uu oran jiray hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. waa buurna jecel oon annaguna jecel lahay ayuu dhabar ka saartay. saxaabadii waa uu qaybiyey qayb baa wuxuu saaray buurbo ka soo sokayso oo jabal rumaad la yidhaahdo. wuxuu madax uga dhigay saxaabigii jaliilka ahaa ee ansaariga ahaa ee cabdullaahi ibnu jubayr. wuxuu siiyey dardaaran dhegta raarici. wuxuu ku yidhi warhooy halkaa dhabarka yaga ah ilaaliya hana ka soo degina xataa haddaad aragtaan iyadoo inta nala laayay shimbiruhu ay madaxa yaga cunayaan ha soo degin. ha odhanina rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam baa halkan mayd oo shimbiri madaxiisa cunaysa ha odhanina halkaa taagnaada wiil. haddaanu guulaysanno jooga haddii nalaga guulaysto ha ka soo degina. dardaaran intaa ka adag miyaydun garanaysaa? dagaalkii waa uu bilowday. rabbi tabaaraka wa tacaala ballantiisii rasuulka waa uu u oofiyey sallallahu calayhi wasallam. haydii horaba gaala daba jeedisay
إلى القرآن كعبري إذ تحصونهم بإذنه الحس في العربية وبيرت مركا لبرانيو بيرت مركا يمبرانيو انت بارك سال الله قبطاه وسط لغا جرا سو سما sidaasad u gurayseen baa la yidhi gaaladii iyagoo dhabar jeediyey laakiin waxaa dhacay xataa idaa fashiltum baa la yidhi ilaa aad ka fashilanteen oo say u fashilmeen wa casaytum fi lamr saxaabadii buurta la saaray baa kolkiiba ismaan dhaafay rag baa yidhi badankoodii war dagaal dhammaa haniimadii baa la buranayaa iyo agabkii ay ka carareen kufaaru quraysh ee alghaniimata alghaniima in laga dabageeya nimanka saxaabigii madaxda looga dhigay iyo in yarna waxay yidhaahdeen maya waxaa la yidhi ha soo degina qur-aanku wuxuu ka cabiray وتنازعتم في الأمر ضوب بحدودي كبلا والمتشوقي إيه تشوقي من غنيمة المفات سنين وحال اسكوها يانا الله وأوقيحي أوحويري من بعد ما أراكم ما تحبون مركو الله إذن تصيوحي أبتعليدين والدنيا إيه بالبلال كيت halkaa waxaa ka dhacay inuu ka helay fursad ayo Khalid ibn Walid waa kii dhabarka kaga soo dhuftay ee intii yareydee buurta ku hadhay kolkiiba soo jiiray waxaa maalintaa iyada alla dilay 70 saxaabi oo min khiirati saxaaba ridwaanullaahi calayhi oo uu ka mid yahay ayo cammu nabiy sallallahu calayhi wasallam Hamza oo kamid yahay ayo Mus'ab ibn Umayr ninkii shaabka ahaa ugu quruxda badnaa reer Makka oo kamid yahay ayo Abdullah ibn Jubayr oo kamid yahay Hudayfa aabihi Jabir ibn Abdullah aabihi oo kamid yahay ayo Malik ibn Nadr ama Nadr ibn Malik بالعكس 70 saxaabi oo min khiirati saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa halkii dhiigooda ku daatay maxaa kale oo dhacay in nabiga dhooshiisii la jabiyey oo shujja ra'suhu madaxiisa la qarxiyey oo koofiyad bireedkii uu xidhnaa madaxiisa ay ku googo'day saxaabadu ay ilkahooda kaga soo gureen waxaa dhacay inuu Abu Sufyaan meeshii ka dhawaaqo uu yiraahdo uclu hubal weynow maanta waan guulaysanay nabiguna sallallahu alayhi wasallam buur isagoo ku gabanaya uu yiri war u jawaaba maxaanu nirahnaa yaa rasuulallah qulu allahu a'la wa ajal ma xisaabsana عدة أوامر تخلافتي وأيو وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة بك يطاوع جاري ما حساب سنة وأيو وخير خلق الله سيد الأنبياء وإمام المرسلين إن ياس 10 إن لغسين إياه عدة والبؤ أوامر تألا خلافتا meesha ay u socoto iyo masiirkeedu waa fashal weyn loo kala qaybin maayo ciddii saalixiinta ahayd iyo ciddii taalixiinta ahayd haddii magaaladeennan zinadu ku badato walciyaadu billaah diincayga iyo mukhaadaraadka iyo xashiishku inagu bato ciqaabta alla markay timaado keligeed ku degi maysa ee min sunani al-anbiyaa